waxa xaqiiqo ah inaynu moogannahay ulajeedka ugu weyn ee koonka u joogno iyo waxa Rabbi subxaanahu wa tacaala inoo abuuray. maanta bini'aadanku waa mid mashquulsan oo ku mashquulsan adduunyo iyo waxaan waxba duxi ka raacayn. Rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu 1400 sannadood iyo dheeraad ka hor rasuulkiisa naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatay ku soo dejiyay aayadan waxay tahay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii ghaflatin mucriduun. dadka waxaa soo dhowaaday xisaabtoodii iyagoo qaflad ku dhex sugan oo sii jeeda. sidaa darteed maalmaha ka mid ah ayaa nabiga calayhi salaam waxaa u yimi saxaabi la yiraahdo Cuqbata ibnu Caamir. saxaabigaasi rasuulka su'aal buu weydiiyey, su'aashaasina waxay ahayd man najaah, rasuulka ilaahayow maxaa lagu badbaadayaa. waxaad moodaa talada uu nabiga calayhi salaam uu siiyey saxaabiga in maanta inagu aynu u baahannahay oo la doonayo inaan nafteena ku dabaqno. wuxuu nabiga calayhi salaam waxa uu yiri amsik calayka lisaanaka waliyasacaka baytuka wabki calaa khati'atik. carabkaaga hayso, xanta ka hayso, beenta ka hayso, dulmiga ka hayso. sababtoo maanta waxaad arkaysaa in bini'aadanku isku mashquulsan yahay oo iyagoo isxamanayaan marna isaflagaadeynayaan. waliyasacka baytuk, gurigaaga ha kugu filaado, ha ku deeqo. haddii qofku gurigiisa iyo ehelkiisa iyo goobta uu ka shaqaynayo iyo masaajidka aan waxba uga dhaxayn, dunuubtu galaawayba iska yaraanaysa. qodobka ugu dambeeyana waxa uu ahaa wabki calaa khati'atik, kana ooy oo ka ilmay gafafkaaga oo ka toobadkeen hadday xumaani kaa dhacdo. aad baa u mahadsan tahay. muuqaalkan ajarka ila qaybso walaalo fara badan sii gaarsii. asalaamu calaykum. bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub. markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada, Qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo, caqiidada, barashada farteena Soomaaliga iyo dhaqanka, iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa. haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550. aad baa u mahadsantahay.